السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودة أصحابتنا جعلنا هاي ومركز تنوع حرين كنال دار الخير ميديا هي النعيم استوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي سبحانه وتعالى أيام هاد إسكاله وسودة هذا مرتدى مانتا شمبر أيا دول يمد بركات بيو أو دلنا يرك عبيسو نفتي سوحو شيكيي إنو سوغا سي أيوة تغان بركاداس سي أساغانو أو عبو بيها وحاد عضي in dhalinyaradii ay ka tagaan barkada balse barkada waxa yimid nin gar weyn shimbirkii waqti badan ayuu sugayay in laga dareero barkada si uu u cabo biyaha wuxuu mardama istusay inuu ka cabi karo maadaama wiilish dhalinyarada ah ay tageen oo ninka garka weyn aanu wax yeelin maadaama uu yahay nin gar weyn leh shimbirkii wuxuu soo degay si uu u cabo biyaha ninkii garka weynaa wuxuu ku tuuray dhagax wuxuuna kaga dhaxay isha. Shimbirkii wuu duulay isagoo isha balaq tahay wuxuuna u tagay Nabi Suleymaan calayhi salaam oo dacwadiisii u soo bandhigay. Dawadeed nabigiina wuxuu amray in loo yeero ninkii garka weynaa. Nabiga calayhi salaam wuxuu weydiiyay adiga shimbirka wax yeelay oo dhagaxa ku dhuftay. Ninkii wuxuu qirtay in uu wax yeelay shimbirka. Shimbirkii wuxuu yiri Nabi Allah ninku wax ima yeelin laakiin garkiisa weyn ayaa wax yeelay. Sheekada murtideeda waxaa weeye haddii aad aragtid nin weyn oo 60 jir ah oo u baahan in wax loo sheego u sheeg. Haddii aad aragtid wiil 15 jir ah oo haya arrin macquul ah ka dhageyso kuna dhaqan taladiisa. Xigmadu waxay ku jirtaa qofkii Ilaahay geliyo ee la doono ee garka weyn oo kaliya kuma jirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.